ragga qaar waxay u haystaan mas'uuliyadda bas Soomaalida dumarkooda kaliya balse ugu gabadh kasta noocay tahay Afrikaan ha ahaato cadaan ha ahaato madow ha ahaato wax ay doonto ha ahaato ixtiraam bay ka mudan tahay gooniya marka saad horumarkaaga u gaartid waxa khasab ah inaad ilaalisid qofka kale ixtiraam aad siisid wanaaggiisa aad u qartid maanta qof walaalka aad horumar gaarina aad horumarkiisa u sheegtid waxa la hadlaynaa anaga ragga oo kaliya marka ما روحي حوين نعبو هايستاهي laakiin haddii qofku uu xun yahay waxay kugu leedahay inaad wanaag wax ugu sheegto xumaan kuguma laha xumaan inaad wax ugu sheegtaa sida xumaan wax ku gaarsii kuma lahid inaad xumaan wax ku gaarsi wanaag baa ku leedahay haddaan qofka wanaag waxba ku gaarsiinayn oo aanad wanaag wax ugu sheegin oo wanaag waxba ugu faa'iideynin halkeeda ku daa waxaan in kula hadlayno ragga badan inta comment ku soo galeen ku soo caayaan of wax kugu dhahayaan waxa ka hadlaysaan wax ku raadinaysaan anaga hadda wax ku raadinayno siyaabo kale wax ugu raadin lahayn laakiin tan waxaan u soo go'aansanay kaliya intii ilaa ma shan qof gaarto intii ay gaari karto fikirkayga oo qaadanaya oo si wanaag qalbiyana u qaadanaya ina wanaagayga farno ما روحي حوين نعبو هايستاهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سورة دمان أصحابتنا قالقة ميل باتشوكتان ولكن إبراهيم روميو iyo sidoo kale walaalkii Xamse Muxsin fadlan channelka ka cusubtahay leena subscribe saarto sidoo kale videogana like saarto leena asxaabtada sidoo noqono family balaaran aad iyo aad maasad dhamaantiba maanta iyo muuqaal cusub ma caawiyo muuqaal cusub maxaa maanta muuqaalkaygu wuxuu ku saabsan yahay sidii kii hore aad soo aragteen wacyigelin ku saabsan xagga ragga videogii kan ka horeeyay wuxuu ahaa dumarka wacyigelin ku saabsan bay ahayd ما شاء الله عاد بنو فرحسنا سي قروح بدنا نوسع سنة كنا صوص منه عادي برامج كان مكان ما انتو كسبسين ورق او كلي ايا لا دردار منا وعي قلنا فكر كيغا لو داغنا ان شاء الله هي ما دام oo barnaamijkii hore aanu ka soo hadlay best dumarka kaliya la talinay tusaalahan adduunka oo dhan waa rag iyo dumar صح dumarka hadii gaar ahaan loo eego wadankeena waa dumarka Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed waxaan jeclahay hadii aad dumarka qura dheerigelin meel badan baa aragnay oo dumarka kaliya laga hadalhayo oo dumarka loo dooday dumarka waa sida la leeyahay ragga qaar waa qaar xun leeyahay laakiin wali maanan arag wax si wanaag ragga wax ugu sheegaya ragga horta isku wada mid maaha balse waxaa jira midho xun oo ku dhex jira midho kaana siiro wanaagsan hadaan wax ugu sheegin aad si wali aad wax ugu sheegto waxa laga yaabaa inaan wax ka qaadano si waashawan laakiin markaad wanaag wax ugu sheegayso qofka waxa laga yaabaa inuu istajiyo isagoo degan videoga daawado kabacdi xataa kii wanaagsana wax badan ka sii faa'iidayo oo ku wanaagsan yahay isagu maadaama uu ficilada noocaas oo kala sameyn waxa jeclaysana maanta in aan rag oo kaliya barnaamij gaar ah sidaan kii dumarka soo sameynay in aan maanta u sameeyno insha Allah waxaan rajaynayaa dhammaan rag meel kasta ay joogaan barnaamijkan wixii ay ka faa'iidaan inay qaataan insha Allah waxa kale jirta barnaamijka wacyigelinta wuxuu u socotaa qaab waxay leeyihiin maalmo u dhameysay ka soo social media ka socday kuwaas oo ahayd dhibaatooyin badan oo rag iyo dumarba u dhaxaysay la isfadeexaynayay ceebahooda banaanka la soo dhigayay marka insha Allah qeyd dumarka waan ka soo hadalnay kan maanta wuxuu ku saabsan yahay waa kan rag oo kaliya haddaan inii bilaabo aniga ahaan fikirkayga maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhowr qodob oo maxaa la dhahay aad u taabanaya ragga haday ahaan lahayd tixgelinta xagga ay tixgelinayaan hablaha walaalahooda yani dumarka Soomaaliyeed gabar meel walba adduunka ay joogto tan kale maxaa la dhahay hab dhaqanka ama qaabka anshaxumada oo kale in la yara joojiyo yani oo ku saabsan hadii video la soo duubayo hadii yani ceeb qof banaanka la soo dhigayo gabar Soomaaliyeed hadii maanta waxyaalaha khaldan tan saddexaad waxa weeye iyo ragga u soo jiidaya dhammaan ragga Soomaaliyeed oo wanaagsan ceebta inta saarna ma kana si fiican isaga wacyigelino aadiyad horta hadii aan eegno raggu waxay sidaan maxay tahay mas'uuliyad ka weyn dumarku ay sidaan ma sha Allah raggu waa bas waa muuqaalka guud ee guriga ma ahan gunta iyo maxay tahay guriga wixii ka socda balse waa muuqaalka guud haduu hadda noqonayso shaqada hadda noqonayso ciyalka inuu korka ka ilaaliyo laakiin waxa soo dhisay waa dumarka ama maamooyinka iyo walaalaha maadaama raggu ay sidaa yihiin waxaan jeclaysanahay inaan horta talooyin siino waxaa jira dad badan oo aan garanayn waxyaabahaas oo kale dumarku koow waxay naga mudayn haddeen ragga nahay ixtiraam gooniya sida aynu inagu isla dhaqanno si ka duwan bay noogu mudan yihiin marka labaad waxaa jira midhar xunxun oo inagu dhex jira rag ahaanteena midharka sayn isaga qaban lahayn haddii imaka tusaale ahaan oo kale haddaad social media eegto waxaad arkaysaa nin ka hadlaya maxay tahay ninka gabadha xumeeyo kale
markaad aragto si uga hadlayo waa si khaldan صح balse isaga waxay la tahay si wanaag inuu maxay tahay wanaag u sheegayo laakiin si khaldan buu wax ku gudbinaya khaladkaas oo kale mid wuxuu sheegay laftirkiisa khaldan sababta uu khaldan waxa weeyaan qofkii kuguma laha inaad qasabto koow kuguma laha inaad caaydo laba kuguma qasbayso dantu inaad shakhsi ahaantiisa wax u gaarsiiso marka qofka markaad wax u sheegayso waxaa muhiima si yar oo wanaagsan oo naxariis ku jirto oo degan inaad wax u sheegto ka bacdi qofka waxaa laga yaabaa marka taladaada intii anfacaysa inuu ka qaato ما شاء الله wixii kalena uu iskaga tago been maaha mid kale waxaa jirta like dad badan oo qurbaha ku nool baa jira videoga horena waa kaga hadalnay waxay aamineen ragga Soomaaliyeed oo dhan inay xun yihiin kelmaddaas waxaa jirtay gabdho badan iyaguna ka soo falceliyay oo arrintaas khiyaal u arkay laakiin maxaa sababay in maanta inaga raggeena Soomaaliyeed inaga maanta isla hadlaynaa in raggeena Soomaaliyeed maanta leena dhaho waa xuntiin in raggeena Soomaaliyeed maanta leena dhaho waxa tiin kuwa aan sharaf mudnayn in leena dhaho maanta dadkii dhalinyaradii yareed oo qurbaha ku korto gabdhaha inay dhahaan ma barabno maanta nin Soomaali ah taas waxaa sababaysa waxa inagu sameynay يعني عيد كله وحمد سمين عيد كله إنكم مدرين عيد كله قبلها مسوق حين وما أورا رجل وحنين لكن وفعل إنك لأنك أركي دحدنا مركو حميه ما سام فعل هذا سوق فجأنه إنه يسوي شيء إنه قبلها إنه يسوي شيء إنه ضد كذا يرضى أو مع القربة كوراي وفهمت إنسان يسوي شيء إنه أو كل قاعد وجبرنه وين إنك وناك لأنك أركي عادي وين النحرس وسمينه ما شاء الله وين إنه وناك قلبي كانوا وجبرنه عايز أي نظر ما يقولنا وين وقت اللي لقى توقف كهذا وقت يمكن فاميلي وحضر كيسا بس سيدي Soomaalidu inay ku dhaqanto koorta way kala duwan yihiin hadii si loo eego dadka wadankii ku nool iyo dadka qurbaha ku nool meel kasta ay joogaanba dadka horta wadankii ku nool dib badan bay qabaan iyo hadii si loo eego dibta qabaan waxa weeyaan raggu dumarka sida ixtiraamkiisa horta ma garanayaan waxa u yaqaanaan badankoodu in ay maxaytii guriga ku dhaca ay shaqadooda tahay balse ogow qofka dumarka waxay naga mudan tahay in ay ixtiraamno hadana talabaad aynaanu haysan qof gurigeena inooga shaqaynayo shaqaalo oo kale aynaanu ixtiraamin iyadoo saaka soo kacday 6 subaxnimo quraacdii noo samaysay dharkeena noo maydhay 12 soo gaadhay وقدرنا إنه سمسي هذنا عشرة إنه سمسي ماشي ساحن إن هذنا إنه هجاجتي أو إنه كلا قرتي هذنا أنت يدو سوتش دي أن إنجرنا ساحن إن هذنا قيل إنك ما إنك قايل إنه وهذنا إنه أنا ده نص محاوس سمسي وحن ركبنا بتشرو إنه عاصمي ولي بفاميليا رنا حاسكاga tusaalaan hadii ay xanaaqsan tahay qofka qul ee dajinaya hooyadad ma abeedna maaha maadaama adigu mas'uuliyadeeda soo qaatay waxa kugu waajiba inaad dajiso hadii xanaaqdo aad raali geliso si yar oo aan raali geliso waqti la qaadato nasiiso xataa marmarka qaarkood aad tiraahdo ana ka hawshan ka qabanay maanta naso waqti kaliya qaado laakiin naxariis darraday ragga ku soo badatay waxa jirta like dhibaatooyinka ugu badan waxa waaye maadaama dee adduunka marka la fiiriyo dadka kale waxay leeyihiin waxyaalaha tusaalaha ragga u gaara iyo waxyaalaha dumarka u gaara tusaalaha YouTube-ka laftigiisa xataa wax laga faa'iidaa 10 u gaara ragga si yani xaaskooda la dhaqmi lahaayeen si ay xaaskooda kaliya ma xataa walaalahooda la dhaqmayaan gabdhaha walaalahay si ula dhaqmi lahaayeen gabdhaha kale oo maxal dhahay xataa ajaanibta ka oo Soomaali ahaantooda kale aan ahayn xataa ula dhaqmi lahaayeen ay adduunku leeyahay laakiin Soomaalida inta malihin waxaynu hadalnaa like markii wax dhacaan ama wixii qof la xumeeyo gabar Soomaaliyeed ama nin la caayo markaas bay social media ka kacana oo xanaaqna laakiin muhiimadda dhabta waxa weeye inaga laftigeena inay wax isu sheegno inaga laftigeena inay wax isbarno inaga laftigeena inay wax isu faa'iideyno inaga laftigeena intii fikir ah in isu dhiiban karno in isu dhiiban because adduunka maanta like haddaan waxba la isu sheegin waqti wax la isu sheegaya ma jirayso insha Allah qof walba adduunka taagan uu ka tagi doonaa ninka dhalinyarada maanta u sheegaya inuu maskaxiisa adeegsado inuu ka faa'iideysto like waqtiga maanta uu ku jiro waqtiyada hore uu ka duwaya يعني ما نقول بقى تماهد وقتك وسيات كانيا وحميهم أمريكا قفل بقى نين فرتو سمينا يا مانتو ميد عيب كنيسة فرتو سمينا يا مانتو ميد هرمر وهرسيدي كرتا فرقو سمينا يا مانتو كرق هذا وميد وحن نفس نرشيس كسابسن كنيسة عادي مركو حميهم إنه سايد وكلا برتو وسايد وقعد أوكي مانتو إحنا سمينا بيكوس مانتو عليه ما كان خالد قال يو صاحبك ودينا عتانية انتو سو محل هاي برشاد هرتو لسه استاجر مده هاي محطة وقبانيسا like ويلا صار محل تاس ودعدي ويعنان تا وحدنا يقول لي يعني taasina waxay keenaysaa maanta duu ii sheeg waayay bari waxba iima u sheegayo dadka qaar waxa jira u yaqaan social media in wax la soo mariyo qof markaad wax u sheegayso hadiiba imka qof aad aragto maba garanayo tusaalahaan oo kale aan arko sugo meel kale ku nool balse khalad sameeyay aan u arko inuu khalad weyn yahay qofkii social media uu isticmaala meel kasta dad raadso helaysa maanta si adduunku sidii hore maaha meel kasta raadsanaysa qofkii wad helaysa qoon yar walaalnimo wax sheeg walaal maxaa soo sameeyay sidana ku qurux dad rag badan waxa jira sidaas sameeyay ma sha Allah la hadaayo
waa rag mas-uula talabaadan hayo rag qaarna waxay u yaqaanaan social media in maxay tahay wuxuuda ay ka wataan hawshooda halkaa wax u marayaan qaar kale khalad bay u fasiranay tusaale ahaan imika aniga saaxiibka Ibrahim barnaamijka soo qaban qaabanay aan isleenahay ragga wax uu sheega midh xun baa jira oo maanta intuu commentiga soo gala hadhow toola dhahaya waxaan wax saxan maaha wax kale ku raadinaysaa sidan baa u raadinaysaan laakiin ogow annaga waxba kuma raadinayno bas waxaa jeclaysan inaa walaalahayaga Soomaaliyeed meel kasto ay adduunka ka joogaan ama qurbaha joogaan ama wadanka joogaan meeshii doonaan baa ka joogaan in aan fariimaha gaarsino raggana gaarsino dumarkana tooda gaarsino masha Allah dumarka horta waa gaarsinay si wacan uga soo falceliyeen Allah inuu kin daayaan lanahay maadaama aan go'aankan u go'aansanay waxa way sababtan u kalaftay hal qof ma wici karno 12 milyan oo qof oo Soomaaliyeed maanta hal qof uma wici karno ma dhihi karno shakhsi aan u wacayna laakiin video waxaan maanta awood u yeelan karnaa inaan video soo duubno aniga saaxiibku iska rab taagan aniga saaxiibku is caawinayna aniga isagoo fikir kaliya hadda maanta ka soo istaagi lahaa laga yaabee inaysan ba ii suurta gasheen barnaamijkan oo kale laakiin marka saaxiibkii garab taagan yahay waxay igu soo dhacaysaa xataa hadal baa iga soo baxaya niyadeeda awal si qalbi ahaan ugu jiray baa iga soo fuqayaan saan u sheegi karo yacni dhalinyarada ula wadaagi karo waxaan rajaynaynaa horta dhammaan ragga Soomaaliyeed maanta in ay mas'uuliyadda saaran horta xasuusnaadaan aan ilaawin oo aan isdhahin mas'uulba kuma saarna mas'uuliyad kuma saarna ogow laakiin mas'uuliyad baa ina saaran rag hadaynu nahay oo dhan mas'uuliyadda saaran waxa weeye in kow haweenka ilaalino ragga qaar waxay u haystaan mas'uuliyadda bas Soomaalida dumarkooda kaliya balse ogow gabadh kasta noocay tahay Afrikaan ha ahaato cadaan ha ahaato madow ha ahaato wax ay doonto ha ahaato ixtiraam bay ka mudan tahay gooniya maadaama Ilaahay ba aanu nasimin hana isdhihin Soomaalida ku sheegayaan gabadh kasta oo maxay tahay say doonto ha ahaato ixtiraam bay naga mudan tahay laakiin haddii qofku uu xun yahay waxay kugu leedahay in wanaag wax ugu sheegto xumaan kugu ma laha xumaan inaa wax ugu sheegtaa sida xumaan wax ku gaarsi kuma lahid inaa xumaan wax ku gaarsi wanaag baa ku leedahay haddaan qofka wanaag waxba ku gaarsiinayn oo aanad wanaag wax ugu sheegin oo wanaag waxba ugu faa'iideynin halkeeda ku daa mas'uuliyadda in saaran inaan xasuusnaano oo dib u xasuusino wax kasta oo mas'uuliyaddaas inaga saaranta صح marka maxaa la dhahay maanta fikirkayga ahaan waytaan inuu soo gudbinay waxa jira dhalinyaro badan oo aniga saaxiibkana soo wacayo oo weydiinayo talooyinkaas oo ku saabsan nolosha caadiga dhabta ah nolosha caadiga marka xaqada la sheego aad bay u adag tahay aadna u fududahay taamicneeda waxaan ka wadaa haddii aad u adkaysatid dadaalkeeda martid saxda ah adigoo aan maanta qofna aad taagan adigoo maanta gabar walaasha ay xumaynayn maanta horumarkaaga wuu ku fududaanaya walow aad marba ku fikirtay maanta gabar walaashaya xumay يعني قبر ولا شيء وحكوا ذا ما هتي كل دالتي وقبر سومالية يعني ويل بلا دالتي ويل بلا دالتي ويل بقى ولا دالي محل ده قبر سومالية كل السومالية هذا الناس فاميلي ومسكونا محن وايو وحنا أمضى قورة إسكو محيتي كلرا حتى نسكو هذا الصومالية إسكو دينا كلا الوقت هاي لكن حاجة وده ما ذكر عند الفيرسطو سقوا ودن كوبنا وأي بقول شركة صلا بالله بينه كلا دكانا كلا الوقت وكلا الدين وكلا النوع إسكو كلا رهين باشرة لكن الحمد لله بأننا إنه صومالية فاميلي كليب إنه منهم تتكلم بحثنا ومحاكي من دون يركز وشيء مركز صاد هرمرك جوجر تبح خصب إند إلى لسيد وقف كلا احترام أساسي ولكن ساعد وقرتي ما تقف لالك يا دهور مرجعنا دهور مركز وشكتي وحلا هذا أنا جوارج أوكلي مركا قف لالك ما أنت دهور مرجع دهور مركز وقرتي وحلا يا ما أنت فيديو كان أنا وانا جاي قلبي هان إنه كل هذا إنه رجع بدنا أنت كومنت كوسو قال إنه كوسو عيان أو وحكود هايان وحكى الإنسان وحكود هذا الإنسان أنا هذا وحكود هذا إنه سيابك راح وحكود هذا الحين لكن تنو حنوسو سوق عن سنة كلية أنت جلا ما يشان قف كارت أنت إيجاري كرت فكر كيا وقعدنا عيا وسوينا قلبينا وقعدنا يا إنه وانا جاي فرنو لكن إن شاء الله أنا قاعد بنفرح سنة حاجة بقولكم إن شاء الله حنرجعني مقال كان مانتينا وحبنا كفاية هذا من رجعتاي إن شاء الله حنرجعني إن ضد بدن كارسين دونتو سي ضد بدن أيها جاكان أو تلوي كان عن صوت شيء إن ما أنت وحبنا كقاطن أدي أدوك مسين ضد وش المقال كان إن شاء الله حد كنت كنا سلاسيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.